xildhibaan Awil Dawiil Cismaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo ka qayb qaadanaya dood ay lahaayeen golaha guurtida Soomaaliland oo ay kaga doodayeen ajandaha kalfadhigaasi oo maanta laga doodayay qodobada waxbarashada iyo dhalinyarada ayaa waxa uu si aad uga hadlay qodobka waxbarashada isla markaasina waxa uu gudoomiyaasha jaamacadaha u soo jeediyay inay aad u adkeeyaan tayada jaamacadaha dalka isla markaasina ay ardayda ku dabagalaan waxa ay dhiganayaan sidoo kale xildhibaan Awil Dawiil Cismaan ayaa waxa uu wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ugu baaqay in ay adkeeyaan tayada waxbarashada jaamacadaha dalka xildhibaanka oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri jaamacadaha ka hadlama jaamacadaha waxa weeyaan inay jaamacad ka baxa waa inuu noqdo inaan luqadiisu dhisan tahay oo buug noo fala akhri karaya oo wax la soo qoro turjumi karaya hadduu buug intuu akhriyo buug kalena uu sii dhiibo iminka matalan professoradan jaamacadaha markuu lagu professor yahay waa inuu wax muhiimtisaa wax kusoo kordhiya tacliinta haddii waxayna noqdaan inuu professorkaasi buug ardayda u akhriyo iyana ay buug akhristaan wax macnaa sameynayso إنك جامعات كبيرة ما تقدرني وين بحسوك يا وضع إنك بروفيسورات وضعك وين في عين لكن ما حد وين أدونك بروفيسورات جامعات هديك وحبي سوكري أما البي إتش دي مثل Soomaali لا والله ما حد قدر البي إتش دي البي إتش دي ما حد قاعد ترى كم تشاركري وبوق آخر أرضي دين كانوا حسوي شيء دينا جامعات كيو إن الله كيو وحوي إن أنا لو قدي سمرك هورا لو قدي وحلو قدي الصومالي marka English buu gelayaa isagoo luqadiisa dhisnaa English dadna oo isoo alaala sameeyay dugsiga sare wala qabsado hada waxa jirnimo baray fanta iska galeen jaamacad galay oo iyo dugsi dhaxba Soomaali dugsi sare Soomaali inkastaan aad u badnay rag baa soo galay kan waxa soo jeedinaa gudoomiyaasha jaamacadaha inay tacliinta jaamacadaha aad u adkeeyaan oo jaamacad ardayga ka baxay oo noqdo arday laga dheehan karo inuu jaamici yahay waa inuu jaamici yahay oo hada tiraado buug in yaro English akhri macnaa kare jaamici ma wuxuu wax ku baranay waa English marka waxaan marka hore dugsiyada dhexe waa in ardaygu uu doonayo jaamacad inuu baray farsi kale isagoo luqadii soo jilsanaatay ilaa luqadii English baa lagu dhigayaa oo luqadii English si fiican u yaqaan inuu jaamacad galo laakiin loo la qabsan maayo haddii isagoo af Soomaali ku dhiganay marka daba jaamacad galo oo English loo rabo oo mid English aan aqoon laba qabsan karaba imkaanistiiskayga burco kale English baa lagu dhigaa dugsiga marka Soomaali lagu dhigto inaan aan baray farsi galnay inuu iska marka gala markaan 500 ku tagno 300 baan ka diray waxbarashada kala tagtay inta taqaan dugsiga markaan taa waxaan aad iyo aad wasiirka waxbarashada ugu talin lahaa in uu jaamacadaha la kantaroolo oo la eego talabaad xagga dhaqaalaha ee lacagta dhammaha in ardayga la semesterkii kaano semesterkii soo shubo horta waa semesterka waxaan ku shubayo waa in ardayga laga dhigista semesterku waxa dhamaad soo shubo semesterka noo dhamaad soo waxaan haday ganacsi noqdaan adoo ganacsanaya waa inaad xalaal ku ragacsiga oo ardayga wax semester aad ku shaqeyso inuu semester ka baxay iyo inuu yaqaano wax aan lacag shuudo noqon inuu shahaado siino ya waxaan kala qaaday xagga nabadgelyada dhalinyaradu waa la fudhabarta runtii aan waxaan soo jeedin lahaa taliyaha ciidanka booliska sheegay inuu sameeyo bilays dhalinyarada u tababaran oo mutacalimiin oo wuxuu sheegi kara oo qaban kara oo ilaalin kara had iyo jeer wacyi gelinteen wax walba ka dhimantay in la isku geliyo ayaa ka horeysa in la isiriyado mobility talabaad waxa jiri jirtay markii hore roond wax la yiraahdo oo ciidamadu saddex gaari ama afar gaari roonda ku wareegi jiray marka habeen walba roonda la maro dhalinyaro waa baqaysa laakiin roondada maxay ku xumaad haddaan inankii roondaynaya habeenkii askari isku soo taagan aan kunaba lahayn oo dhaxni ku dilaysa meesha oo aan dadku kuna gurnaha habeenkii la siin ama 7 kuna gurnaha la siin roonda noqon mayso koobitagu iska ruuxayeen markaan waxay u ku wanaagsan meel xaalad Soomaaliya aad fiican maraysa runtii in wax la soo sheego TV-yada nimika midna ka hadlaya xusbi ama qabiyaal in barnaamij waxbarashada iyo barnaamij dhalinyarada ay sameeyaan oo si fiican la soo geliyo oo bilayskeena iyo dhalinyaradu iyo wax walba bilaysku dadaalaya runtii meel walba dibadda ka taag gobolada oo kale wadanka Hargeysa kaliya ma had erga dhalinyarada leedahay burca dhalinyarada leedahay laasoo dhalinyarada leedahay meel kasta dhalinyarada iyo bilayskeeda in la isu jiheeyo dhalinyaro bilayska la saan qaadi karta oo mutacalimiin oo wax sheegi karta oo qaban karta oo fahmi karta in la sameeyo